tani waa Muqdisho magaalada dhaxalka u heshay farxadda iyo murugada mar walba isdhex yaala Muqdisho waa caasimadda ummadda Soomaaliyeed waana magaalada ay ku nool yihiin in ka badan 3 milyan oo Soomaali ah iyo waliba ajaanib fara badan magaalada Muqdisho wixii ka dambeeyay burburkii dawladda Soomaaliyeed 1991 ilaa iyo haatan oo laga joogo muddada 30 sano maalin walba waxa ka dhaca musiibooyin aynan u adkeysan karin maqalka dhagaha Muqdisho waa magaalo dadkeeda aysan quusan wax walba oo dhibaato ah loo geystay 30kii sano ee u dambeeyay magaalada Muqdisho waxa ka dhacay waxyaabo aysan dhagta bilaadanka maqli karin indhaha bilaadanka rumaysan karin qalbiga bilaadanka uusan ka xajisan karin dareenkiisa 10kii sano ee u dambeysay Muqdisho waxa u dheeraa dhibaatooyinkii ay soo martay qaraxyo iyo musiibooyin galaaftay nolol dad badan oo Soomaaliyeed mar walba oo bulsho ay meel ku badato bulshadaasi waxa laga helaa dad xun iyo dad wanaagsan laakiin yaa ka dambeeya qaraxyada Muqdisho sidaan horeyba u soo sheegnay 10kii sano ee u dambeeyay magaalada Muqdisho waxa ka dhacay qaraxyo xooggan waxaana u horeeyay qaraxii Shaamu ee lagu laayay arday ka qalin jibisay jaamacadda Banaadir ahaydna iftiinkii dalka u soo baxay waqtigaas burburkii kadibna noqday ardaydii ugu horeeyay ee dalka gudihiisa wax ku barta kana qalin jibin doonay jaamacad laakiin waxa bedelay murugo iyo ciil halkaasna waxa lagu waayay wasiirro waxtar lahaa iyo arday soo qalin jibiyay oo ay la tagtay musiibadii ayday si fudud lagu mayloobin laakiin waxa ka dambeeyay musiibooyin badan waxa u darnaa qaraxii 14 Oktoobar 2017 ka dhacay isgoyska Soobe magaalada Muqdisho waa magaaladii martigelisay geeri ka badan 1000 qof hal maalin iyo dhaawac kor u dhaafay isla 1000 qof dadka magaalada waxay arkeen indhaxumo sababtoo ah markii aad ka soo tagtid gurigaada adiga oo faraxsan ciyaalkaagana u soo shaqo tagtid aad la kulantid qaraxas ku dhimato ciilka iyo murugada waa dareemi kartaa waxaana ku xigay qaraxii weynaa ee shalayta ka dhacay magaalada Muqdisho isgoyska Afgooye oo aan ku weynay dad kor u dhaafayo ilaa 100 qof dhaawacuna oo isbitaalada buux dhaafiyay xasuuqa iyo dhibaatada shacabka Soomaaliyeed meel walba ku haysato yaa ka mas'uula urur diimeedyo mar walba shaati gooni ah soo xirto shaatigii horena noo bedesha siyaasadaha isdiidan ee ay sameynayaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed shisheeye kalkaal wadanka dhexdiisa ka wada fidno ayaa loo aaneynayaa dhibaatada ka taagan gudaha dalka halkaas oo laga soo abaabulo dibadda dalka dawlad madaleysa oo inta aysan xilka qabanin mar walba ballanqaadyo waaweyn noo sii sameeysa haddana hal bacaad lagu lisay nooga dhigta hadalkeedii dana gaar ah oo loo leenayo shacabka Soomaaliyeed ama dambi gooni ah oo ay galeen ma jirto laakiin waa inay yihiin oo kaliya dad muslim ah kuna dhagan diintooda muhiimaddu hadalka Soomaaliyeed waa noola tashtay aan u midownaa cadawga ana kala baranaa cadawga iyo saaxiibka Muqdisho nabadgelyo qalbigaad ku taala Muqdisho